ogeysiis dhammaan waxaa la ogeysiinayaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin in TV-ga Runsheeg aad hore kaga barateen barnaamijyada kala duwan warbixinada xiisaha badan iyo muuqaalada cajiibka ah in dhawaan arimo cusub ka hirgelin doono magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska iyo sidoo kale magaalada New York ee xarunta dalka Mareykanka laamo cusub oo TV-ga halka ku yeelan doono kuwa oo si toos looga soo tabin doono barnaamijyada kala duwan ee TV-ga ka baxaya TV-ga Runsheeg ayaa hore xarumo fara badan ugu lahaa dalka Soomaaliya ay ku kala yeeleen magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso, Hargeysa iyo waliba Kismaayo. laamahan cusub ee laga hirgelin doono magaalada London iyo waliba New York ayaa qayb ka noqon doona xarumaha TV-ga oo yeelan doono. dhanka kale TV-ga waxa uu xiriir wanaagsan la yeeshay iyo wada hadal muddo dheer qaatay shirkadda Facebook ta oo runtii kala hadlay barnaamijyo kala duwan ee shirkaddu ay bixiso sidii loogu suurtageli lahaa Soomaalida meel walba ay joogaan. waxyaabaha ugu weyn ee xoogga lagu saaray wada hadalka labada dhinac dhex maray shirkadda iyo waliba TV-ga Runsheeg TV ayaa waxa uu ahaa sidii dib loogu soo celin lahaa Facebook-yada ka xirmay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyadoona TV-ga taa u doorbiday in dad fara badan oo Facebook ay ka xirmeen la soo xiriiray taa oo runtii u suura gashay TV-ga in juhdi fara badan uu ku bixiyo sidii xiriir wanaagsan uu la yeelan lahaa shirkadda caalamiga ee Facebook taana ay u suurta gashay maanta uu ku guuleystay in member uu ka noqdo shirkadda Facebook. haddaba dhageysto ma doonaysaa in Facebook ka xirmay dib lagugu soo celiyo iyo asxaabtaadii aad la sheekaysan jirtay adigoo meel dheer u aadin daqiiqada gudahoodna lagugu soo celinayo haddaba waxaa kaa qabtiri doono khubaro ku xeel dheer arrimahaasi oo ku sugan TV-ga caalamiga Runsheeg kadib markii member ay ka noqdeen shirkadda Facebook. haddii ay tahay jawaabtaadu haa haddaba nagala soo xiriir ciwaanada shaashada ku qoran.